wala marka ugu horeysa waxa ma hadoo dhan u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suurta geliyay inaan halkan isugu nimaado sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan saaxiibada qiimaha badan saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda qiimaha badan ee halkan jooga oo runtii أنا من سنة هاي أما أي تهيبة هذا أيجا حالهين أو أيجا أنا بحيل هندي تكودا أو أيجا أنا بحيل هندي كودا أو أيجا أنا موجل هين طلقاتك إيادة كيسك أو أيجا أنا موجل هين والدنيا ده يضل جعل كورة يضل جعل كودا قولها ما أنت لقوا فدي يلا بسوق جاري الهين وحن إلهي إذن كجبريا يا إنه إذن حفظه يا أياد قوم هتسنتهين واجباتك يا قرنك وح الشلع أدو دارتين مسؤوليات دي أدو قادين ومدينة مسؤوليات دي أدو قادين قرنكينا مسؤوليات دي أدو قادين دلكينا أو أتسيح قرلانا أو نفر نماء أو جيس نماء أو صومالي نماء أو ودنيات له oo fi fircooni iyo karti ay ku dheehan tahay aad u gudateen aad iyo aadan idinkaga mahad celinaya runtii farxadeena lama soo koobi karo xubin kasta oo adinka idin kamidana waxaan dareensanahay sidaas oo kale inay u faraxsan tahay oo ay ku faraxsan tahay oo aad iyo aad farxad aad weyn ay u dareemayso dhammaan waajibaadkii ay soo qaadatay dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed oo aad ka soo dul qaadeen cadawga argagixisada oo arxan laawayaasha ah oo muddo 15 sano ah deegaano oo dul saarna oo caburin iyo cadaadis iyo cagajugleyn oo ku haayay aad iyo naftiina u hurteen aad ka soo saarteen waxaan Ilaahay uga baryayaa saaxiibadii qiimaha badnaa ee nooga shahiiday Ilaahay inuu naxariistiisa janno siiyo nimanka qawaarita ah culumaduna way noo sheegeen qof allaala iyo qofka nafteeda ku weysana inay tahay shahiid oo Ilaahay jannadiisa ay helayso qof allaala iyo qofka ayaga dishana inay jannada ku galayso oo ay qawaarij yihiin waa arkayseen isbuuciyadii ugu dambeeyay iyo bilihii ugu dambeeyay iyo mar kastaba dadka ahlu diinka ee culimada Soomaaliyeed ah ayaa fadwooyinka soo saaray oo waxa ay yihiin tilmaamay waxaan ku faraxsanahay marka waajibaadkaas qarankeena soo qabateen kuma filna kaliya kelmadan afka idin ka dhaxno inaan idin kaga mahad celino laakiin qalbigan idin kaga mahad celinayna dadka Soomaaliyeed qof walba oo muwaadina oo Soomaaliyeed oo meel walba joogtana sidaas oo kale ay qalbiga idin kaga mahad celinaysa ma malaayikartiin hooyooyinka Soomaaliyeed iyo abayaasha Soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaanada aad soo marteen ee argagixisadu ay muddada dheer dul saarneeda ku nool maanta farxadda ay dareemayaan ma malaayikartaan ducada ay maanta idin la garab taagan yihiin ma malaayikartaan ogaada wax la soo koobi kara ma xaqiiqatanka waxay ku jiifaan nabad ayagoo aan ka baqayn meena wadada loo galiyo ayagoo aan ka baqayn subaxii in loo yimaad naftooda iyo maalkooda wixii la doono laga sameeyo ayagoo aaminsan waxa ay maanta heestaan inay ayagu leeyihiin oo cid uga cagajugulay karta aysan jirin ogaada nimanka argagixisada qof walba oo muwaadin oo dul saaran yihiin ama ay la joogaan waxa ayadu ay leedahay haysato qalbigeedu uma sheegi karta inay ayadu leedahay sababtoo ah markay rabaan u imaanay wayna ka qaadanayaan inay ayadu qofkaas inuu asugu iska leeyahay marka ma sheega kariyo runtii maalintii aad ku soo biirteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad ka soo baxdeen tababarada kala duwan aad qoriga iyo dariiska u qaadateen aad u dhaarateen dalkiina iyo dadkiina inaad difaacaysaan wixii ka dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sharaftiisii iyo qiimkiisii waxa iska bedelay wax weyn iska bedelay waa ku mahadsantihiin taariikhduna waa idin xusi doontaa ogaada taas taariikhdu waa idin xusi doontaa laakiin 17 sano oo aan kala go'ol lahayn markii ay dul saarnaayeen ee ay dhiigooda daadinayeen ee ay caburinayeen ee ay maalkooda qaadanayeen dadka Soomaaliyeed
iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed badbaadintooda inay ku jirto gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed gacantooda taas ayaa keentay ciidankan qiimaha badan in go'aan la qaato oo lagu soo biiriyo cutubyo cusub oo loo carbinayo difaaca qarankooda difaaca dalkooda iyo dadkooda difaaca diintooda loo carbinayo in xoogga dalka Soomaaliyeed lagu soo biiriyo maalinka aad ku soo biirteen waa ogtihiin maalinkaas ayuu isbedela magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalinkaas ayay isbedeshay rijada dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan in wiilashooda ay gabdhahooda ay xuray doonaan oo ay cadawga ka dul qaadi doonaan maanta ma rumowday ma rumoobin maanta way rumowday yaa idan la socda maanta on Allah ka ahayn qof kale miyaa idan la socota aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii isbedelka aad samayseen nafurnimada aad samayseen geesinimada iyo kartida aad samayseen waan ogeynay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed hadday gartaan oo garwaaqsadaan inay danaha ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan inay ka mir dhalinayaan saaxiibadayda qaaliga wiilasha iyo gabdhaha qiimaha badan guushu waa dhowdaha argagixisaduna way jabeen godadkii ay rijada ka dayayeen waad ka soo bixiseen waxa ay heestaan waa laba option gacanta geesiyaasha qaranka oo adinka ah inay isu soo kiin diibaan oo gacmaha taagaan oo yiraahdeen waa toobad keenna ilaahay baan u soo noqonay ummadeena u soo noqonay iyo inay meesha ku dhintaan wadiiqa kale miyaa u furan wadiiqa kale uma furno oo wasan idin sheegay dhaawacooduna adinka soo aragteen geedahow ku hoos dhiig baxa hadda aagi aad ka soo baxdeen kadib waxa la sheegayay kuwa in hawdka ku dhax dhuunto geeda hoos galay say u rafanayeen aad moodid meesha faas in la qaata la falay ku nafbaxeen meesha kuwa kalena in qaadeen ay geedahan hoos geeyeen maalinba meel ay ka sii qaadaan bal qiyaas nolosha ay ku jiraan nooca ay tahay waa ka xunnahay inay dhibaatada noocaas ku la dhacdo dhibaataynta dadkooda iyo dalkooda laakiin waa ku qasbannahay gacanta ugu adag inaan ku qabanno si aan uga badbaadino qarankeena iyo ummadeena waan idin mahad celinayaa runtii lama soo koobi karo farxadeena waan ku faraxsanahay wajiyadiina waan ku faraxsanahay la joogiina waan ku faraxsanahay badqabkiina waan ku faraxsanahay moraalka iyo niyadda aad u haysaan suulinta iyo dabargoynta cadawga dalka iyo dadka Soomaaliyeed waana idinku amaana waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin karaameeyo waad karaamaysan tihiin ummadiina dhaxdeedana waa ka karaamaysan tihiin qarankiina waad u karaamaysan tihiin Allah subhanahu wa ta'ala waxa idin xafido wax yaraan noo haray saaxiibadayda qaaliga dhulka noo haray waa laba qaybood meel yar oo geedada hoo yar aan aad u weynayn oo hawd hoo yar inay meeshan ku sii jiraan laga yaabo hoon aad u sii badnayn oo sidoo hore aan ahayn laakiin ogaada god haday galaan xataa waxaan aaminsanahay in uga dabagelaysaan god sii yaalo qodan oo mugdiya xataa haday galaan inaad uga dabagelaysaan aan aaminsanahay waana soo aragnay waana uga dabagasheen waana ku mahadsantihiin